والله أول مرة أنا وحنا هاي قف isgoyska soobe gaar ahaan bisha cas ayaa waxaa maherad ayaa maanta ku lahaa sandaqad yar ayaa iga dhisnaan jirtay sandaqadaas waxaan ku gadan jiray bagaash ayaan ku gadan jiray sarfna qaybna sarf ayay ahayd qaybna bagaash ayay ahayd alxamdulillahi rabbil caalamiin anigu waxaa ilaahay siiyey 9 caruur ah ayaa ilaahay siiyey 4 wiilal iyo maaragtay 5 gabdho ayaa ilaahay siiyey maaragtay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilmahaas qaar ka mid ah iskoolaadka dugsiga sare dhigtaan qaar ka mid ah alxamdulillahi rabbil caalamiin jaamacado qaar dugsiyada quraanka ay dhigtaan alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ku maareyn jiray nolosheena iyo ilmahaas maaragtay fiigooda maaragtay alxamdulillahi maharadeedaas ilmaha waxaa jiray labo oo ugu roroonaa oo ah maaragtay maryan cumar xaaji maxamed iyo bashiir cumar xaaji maxamed labadaas oo maaragtay igu caawini jiray shaqada maadaama aan ahay qof oo disable ah ama qof naaf aan ahay oo aan xoog lahayn alxamdulillahi rabbil labadoodaas iskool ay dhigan jireen labadooda mid wuxuu dhigan jiray bashiir cumar xaaji wuxuu dhigan jiray iskoolka almasal waa beri ayuu dhigan jiray oo maamulaha uu ka yahay ustaad rooble cadaanteedii iyo waxaas dhan xataa waa keensan karaa imtixaanaba u socday sabtidii ayaa imtixaankii waxaa u bilowday taalamka almasal imtixaankii taalamka ayuu galay sida caadadeennu ahaan jirtay wiilkaas subaxdii aroortii hore maaragtay waa isdiyaarin jirnay anigii asagaba subaxdii 12 saac wuxuu kusoo dheelmin jiray maaragtay meherada uu ii xaaqi jiray uu ii maaragtay hagaajin jiray kadibna uu ii imaan jiray markuu asaga qabiiso labisto ayaan isa soo raaci jirnay meheradii ayaa maaragtay aan fariisan jiray aniga maaragtay meesha fadhin jiray oo ka shaqayn jiray isagana madrasada ayuu aadi jiray madrasada markuu aado 7 saac oo kale markuu ka yimaado maaragtay suuliga gali jiray uu qabiisan jiray salaada duhurka iska bixin jiray kadibna uu qadeyn jiray anuu ii imaan jiray 8 saac ama 8 saac ayuu ii imaan jiray 8 saac markuu ii yimaado hadda aniga 1 saac iyo bar maaragtay fadhi ilaa 8 saac iyo rubi fadhiyaan ahay waan daalanahay isaga ayaa bedeli jiray 8 saac iyo rubi marka aniga gurigaan imaan jiray anagu waan qabiisan jiray maaragtay alxamdulillah salaadan iska bixin jiray waan qadeyn jiray wax yaran maaragtay seexan jiray casarkii oo kale aan soo kici jiray maaragtay waan weysaysan jiray salaada casarka markaan iska bixiyo yaan haddana dib ugu laaban jiray anigoo marka asaga u fiirnayo waxaan dhihi jiray iska laabo aabow aad maaragtay guriga imaan jiray wax yaroo seexan jiray maqribihiis oo cashirkiis u aqriyo xilligaas markaan aniga tago ilaa iyo saacadaha maaragtay sagaalkii iyo barkii ama 3 saac iyo bar sida dadka Soomaalida midba u yaqaanaan ayaan ku gaari jiray 3 saac iyo bar hadii la gaaro waa iska xiri jiray alxamdulillah gabadhan alxamdulillah iyadan waxay ahayd caanaha ayay maaragtay maharadeeda horteeda ayay caanaha ku gadi jirtay si ilmaha caanahooda aan ugu soo dhacsano iyadan xiliyada markii iskoolka laga soo daayo albilaad ayay dhigan jirtay markii madrasada laga soo daayo ayay iyadana way qabaysan jirtay salaad duhurkeed ku jirtay way qadeyn jirtay markay qadayso 8 saac oo kale ama 8 saac bar oo kale ayay imaan jirtay markay timaado alaabta ayay dhaqi jirtay caagidii oo maaragtay caanaha lagu doonayay waxaas adiga 9 saac iyo bar oo kale ayay meesha ka tagi jirtay caanihi raadin jirtay 10 saac oo kale ay caanaha keeni jirtay way xiri jirtay ilaa iyo maqribihii gabar kale jirto iyadana maaragtay alxamdulillah oo iyadana hadda ka baxday dugsiga sare taas marka iyadana soo bedeli jirtay oo xaawo cumar xaaji idan dhaho ilaa ay habeen 2 saac iyadaas maaragtay joogi jirtay marka sidaas ayaan isku bedeli jirnay oo maaragtay waxaan ahayn dad oo maaragtay igu caawinay ay ahaayeen maaragtay ilmaha inta badan waxay ahaayeen dad naafi ahaayeen ilmahayga in yaraa maaragtay alxamdulillah ilaahay ii badbaadiyay oo dad lixaadkooda taam ilaahay iga dhigay marka dadkii lixaadkii taamka ilaahay ka dhigay ayay ka mid ahaayeen labadan hadda oo maaragtay oo meesha ku geeriyootay oo bashiir cumar xaaji maxamed iyo maaragtay maryan cumar xaaji maxamed sabradoodana waa haya labadoodii meesha ku dhinteen meesha qaraxii ayaa haleelay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodiina waa laana waxa way meeshii aan fadhiyay bisha cas iyo maaragtay safari inta u dhaxeeya ayaa gaariga isku baaqimay oo qarax ku sameeyay marka raqdoodii iyo ruuxdoodii ayaa la waayay gaariga qaraxi ayaa u dhawaa aad ugu dhawaayeen macnaha hada albaab darbigii bisha cas ayaaba dumay hada waa iska garan kartaa marka darbigii meeshii uu ka dumay maaragtay dukaan yaro meesha ku yaalo sandaqada yani in maaragtay haddii ilaah ku ron yahay oo meesha qofkii taagnaa inuusan nolol aan lagu xisaabin labadoodaan ilmaha dhashay ugu weynaa iyaga ugu roroona oo hadda dadkii tabarta gale oo aan
oo aan maciinayay oo shaqada ila qabanayay ayay ahaayeen dabcan waa dhacdo xanuun badan meesha dad 300 qofood gaaraya wax ku noqday ama ku dhintay iyagana qaybay ka noqdeen muxuu yahay marka hadda maxaad dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ka dalbanaysaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan hadda meeshan oo mid wax kale ma aha maadaama gurmadka qaranka uu ku qoran yahay degmada xarunta qaranka ee gurmadka degdega uu yahay oo sida hadda aan ku arkayo maartay sawirka waxaan u imid in dhacdaas oo maartay oo aad iyo xanuunisay awal marra yani waa laba dhibaatada hore waa maartay alxamdulillaah meeradeedii oo aan waayay dhaqaalihii yani oo meesha lacagtii aan ku shaqaysanayay iyo maartay oo meesha aan ku waayay awal marra ثانيا ilmahaygi oo qaaliga ah oo meesha aan ku waayay oo ugu saaciday shaqada ugu saaciday maadaama aan ilmihii aan meesha ku waayay taas ilmaha hadii wax soo celin karo ayaan jirino maartay kullu nafsan da'iqatul mawt waa qof walba yani alxamdulillaah waqti uu leeyahay oo ku dhimanayo ilmahaas hadii soo celinteeda idinkugu imaanin oo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin waxaan idinkugu mid maadaama dawladii aad tihiin in arintaas iyada ah iyadoo la ila qaybsanayo aniga maanta alxamdulillaah ilmaha kuwa kale wax qabanay ay ahayn ninkaas alxamdulillaah oo naafada oo gaariga lagu riixayna aan ahay in oo dawladda ay wax igala qabato oo maartay saacidaad aan ka helo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda waxaan meeshan u mid waxaan fariinta gaarsiinayaa madaxweynaha oo u horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu ku xigo ra'iisul wasaaraha cali khayre oo ku xigo in wax ay iga qabtaan